الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أعزنا غيثا مغيثا آمين آمين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم isu soo baxani balaaran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana alaweyne looga bariyeen raxmadiisa uu ku soo shubo guud ahaan Soomaaliya waxaana isu soo baxani ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ardayda dugsiyada Quraanka ardayda iskuulada iyo waliba qeybaha kale ee bulshada waxaana barxad ku taala magaalada Jowhar lagu dugtay salaada roobdoonka salaadaasi kadibna waxaa saxaafada la hadlay culimo diinkii ka soo qayb galay salaada roobdoonka ee alaweyne looga bariyay in raxmadiisa uu ku soo shubo ummadda Soomaaliyeed roob la'aan baan hayso ilaahay subhanahu wa ta'ala guriga ayaan ka soo baxnay ayagoo ma arkaysa anagoo ka cabanayno dhibaatada aan ku jirno ilaahay waa dunuubteena aan galnay waxaan ugu la dhaceen ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubti raxmad ilaahay ayay naga xijaabtay ilaahay wuxuu leeyahay wama asqabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wixii musiiba oo idinku dhacda waa wixii gacmiino ay shaqaysatay ilaahayna in bada subhanahu wa ta'ala wuu naga cafiyay naxariista ilaahay iyo dambi dhaafkiisu waxay ka balaaran yihiin dunuubta adoomanku ay galaan nicmada ilaahay subhanahu wa ta'ala la garamay illa markii la waayo mooyaane ilaahay subhanahu wa ta'ala musiibada nagu dhacday abaarta nagu dhacday roobka naga xabismay waxa soo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu imtixaanayaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala baahideena uu muujino makhluuq ilaahay khaliqiisa uu muujiyo dhibaatada ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka Shabeellada Dhexe Sheekh Ahmed Siid ayaa waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay ka dheeraadaan macsiyada taas oo uu sheegay in ay tahay mid kaliya ee raxmadda Alle lagu weyn karo in marka roobdoonka laftirkiisa ama roob kale way maxaa keenan way waxa keena sabab ay ku timaadaan in Allah la yadlimu an-nas ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلهي أدوميكيس أسيغاس أغورتي إنه رب كرهبه كغويو أما رحمة كرهبه مري عكرته لكن سبب باجرته سببته حكمي ده شيخي هدايا آيد نسوق هداي والله رب الله مثلا قرية كانت آمنة مؤمنة يأتي رزقها ونسوق هذا أيا كميته مركي نعمة إلهي نسيي وأنا عنكو كفرنه وواجبات كده عنكو ذوينه وحا إيمانا يو لبات الرب لانا إيماني سعودر وإيمانا إلهي وحوش قرآن كيسو كل شيء إنه أقرقارايو عندي أسيق أقرقارت إلهي نكي أقرقارو أسيق أقرقارا صباحاني alaweyne looga bariyo in raxmadiisa uu ku soo shubo ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu balaarnaa ee ka dhaco gobolka Shabeellada Dhexe walow aysan ka soo qayb galin maamulka Hirshabelle Cabdifataax Ahmed Maclow Cabdifataax Zaki telefishinka caalamiga ee Bulsho Jowhar